muqdisho magaalo nabad ah balse aadan hubin iyadoo sidaas ah inaad ka nabad helayso askariga Soomaaliyeed ee qoriga sita kaas oo siyaabo kala duwan oo sahlan u goyn kara naftaada sida maanta dhacdayba askari Soomaaliyeed ayaa isgooskan ku dilay gabar yar oo halkan bajaaj ku mareysay kadib markii jidku ciriiri noqday askariga ayaa rasaas ku furay gaadiid tiro badan oo jidku ku xirmay halkaas oo ay ku geeriyootay gabadhaas yar sida dad goobjoogayaal ah ay noo sheegeenna askariga dilka geystay ma uusan muujin wax walwal ah oo la xiriira inuu dilay gabar yar oo aan waxba ka bi'in wuxuuna isagoo garabka sii gashanaya AK47kiisa uu ka huleelay goobta laamiraha Soobe waxa uu ka mid yahay isgoosyada ugu badan ee askartu ku dilaan dadka shacabka ah shalay waxa halkan lagu toogtay wiil dhalinyaro ah oo ka shaqeynayay goob hilibka lagu iibiyo kadib markii askari dawladda ka tirsan oo ka soo degay gaari Cabdibilaa uu rasaas ku furay darawal mooto bajaaj oo jidka kaga horeeyay rasaastaas oo dhaawacday wadihii mootada kadibna madaxa ka haleeshay wiilkaas Nation Media waxaa la hadashay gabar ka mid ah ganacsatada ay shaqo wadaaga ahayeen marxuumka geeriyooday shila ka dhacay shil xoog la meeshan ka dhacay markay bajaajada meesha isku xireen rakaabka isku xireen ciidamada dawladda ay maatay bajaajada iyo furay sidahayeen wadada xabaday soo rideen bajaajada ku dhufteen wiil oo miiskaas ka shaqeysto xabada ugu dhacda halkaas hilib oo gaday wiil masaakiin hilib gadaayo anaga masaakiina hilib aan gadnaa xabada waxay ugu dhacday madaxay ugu dhacday halkaas ay ku dhacday oo ku dhacay maskaxdiisu way daadatay isla markii naftaaba ka baxdo isku ma soo gaarin bajaaliina electriga go'ay isbitaalka la geeyo xal naf dhaaxa kuma jirta Allah ninkeena waa la qabtay maanta waxa ka dhacay bajaajada sidii oo dan la isku xiray gabar yariis oo dhar loo doonto jir ah oo halkaas mooto la taagan xabada dana isku fureen gabadhiina waa ku dhimatay dana anaga marka masaakiinana meeshaan ka ganacsanaa markaas jaamac dhaco ciidamada dawladdu way imaadaan dadka ayoo ulay karaan oo dhacnaana karaan ay xabad ugu aabayeelaan jaamka ka jira laamiraha Soobe ayaa waxa uu soo jiitamayay tan iyo markii la guda galay bisha barakeysan ee Ramadaan waxaana lagu eedeynayaa ciidanka taraafikada oo markaa la sheegay inaysan si fiican u kala hagin gaadiidka halkan isticmaala iyo sidoo kale wadooyinka magaalada Muqdisho guud ahaanteedba balse mid ka mid ah ciidanka taraafikada oo halkan ka howlgalaya ayaanu la kulannay waxaana uu sheegayaa in markaasi jaamka ay ka dambeeyaan gaadiidleyda oo uu sheegay in wadooyin qaldan ay soo maraan jaamka hadda waa yaraad alxamdulillah jaamka waxa kalifay oo qasbay mootoley meeshan wadadan qaldan ay ka soo galay wadadan tooska ay ka soo galay waa isku xirmay mar ya hadda waa kala furnay alxamdulillah kan baawarta taaltaal dhacdooyinkan waa ay soo noqdeen xalna ma laha dawladda Soomaaliyana uma muuqato mid askarteeda kula xisaabtamaysa dhibaatada ay shacabka ku hayaan inkastoo ay jirto tiro yar oo maxkamad la soo taagay haddaba si arintaasi looga hortago waxaa baaq jeedinaya aabahan Soomaaliyeed waxaan mataqaanaa ogeysiinaha dawladda meeshaan mataqaanaa inay galabtii cariiri markastaba cariiri inuu jiro oo maaragtay xabado ciidan baabuurta isku xirmayso baabuurta markay isku xiratana ciidan oo maaragtay tababarnayn lowsaala iska imaanayo oo xabadaha hoos u ridayo marka dawladda sharafta leh waxaan ka rabnaa maaragtay in meeshaan maaragtay wax ka qabato Maxamed Yaxya Jino warbaahinta Nation Muqdisho